yahow inaadan guul gaari karaynin haddii aadan isku aqoonsanin inaad tahay shakhsi ay dadka si aad u jecel yihiin. Noqo mid naxariis leh, noqo mid daacad ah, noqo mid degan oo miisaan leh, noqo mid dulqaad badan, noqo mid firfircoon, noqo mid isku kalsoon, noqo mid deeqsi ah, noqo garsoore daacad ah. Muuji wixii furfurnaan, tixgeli bani'aadamnimada, ku qaabil qofka weji wanaagsan xitaa haddii uu ku xumeeyo. Qaado cafinta, iska cafi, maxaa yeelay waa argoosiga ugu wanaagsan. Ogolow in lagaa saxnaan karo. Aqoonso xadka aad leedahay. Sii dadka waxa aad jeceshahay, ha siinin waxa aad neceb tahay. Ha noqonin shakhsi hadal badan, ha noqonin shakhsi hagaro ama xasad ah, ha noqonin shakhsi darajada ku faana, ha noqonin shakhsi dhanka xun wax ka eega, ha noqonin shakhsi galad sheegasho badan, ha noqonin shakhsi kibir badan ama isla weyni badan. Ha xaqirin shakhsiyadda qofka, ha xaqirin qofka wanaagiisa. Carada badan iska ilaali, waayo carada waa shaydaanka furihiisa. Ha samaynin markhaati been ah, ha caadaysanin beenta. Ha la gelin faraha waxaan ku tusaynin, haddii kale waxaad la kulmaysaa dhibaato. Ha dhihin ama ha kala turtagin qofka waxa uu neceb yahay hadal ama ficilba. Ha ugu yeerin qofka naanays uusan raalli ka ahayn. Ilaali ballanta, waayo ballantu waxay leedahay muhiimad weyn. Isku day inaad runta sheegto ama xaqiiqada ka hadasho. Iska cafi qofka ku xuma. Ilaali amaanada, iska hubi wixii lagu sheego. Xumaan kale ha ku bedelin. Xiriiri qofkii ku guriya. Hadlow weligaa deriskaaga. Ula hadal dadka si wanaagsan oo raxmad leh, waayo hadalka wanaagsan waxa uu ka qayb badan yahay hadalka xun. Ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo. U caawi dadka si aad adiguba u jeceshahay in lagu caawiyo markaad dhibaato ku jirto. Waayo intuba waa furaha farxadda. Farxadduna waa jidka gaaban ee ku geyn karaya kalsoonida dadka wanaagsan iyo kuwa xun intaba. Waad mahadsantihiin. Nabadgelyo. Sidaas ayaa inoo ballan ah. Ku dhaqan wanaagsan.